kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon janalka xulashada wararka. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo fariin adag oo ku aadan doorashada u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland oo si adag uga hadlay war ka soo baxay dhawaan madaxweyne Farmaajo. go'aan ka soo baxay kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo kulan ay maanta ku yeelanayaan Muqdisho. wasiirka amniga galmudug oo lagu wareejiyay maleeshiyaadkii ugu tirada badnaa iyo in ka badan 10 gawaarida dagaalka ah. warka ugu weyn ee dunidana waxa uu yahay madaxweynihii Burundi oo u geeriyooday xanuun dhanka wadnaha ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan wararka oo idin hayo janalka xulashada wararka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax. waa tahay daawadayaal inta aanan u guda gelin warkaas oo dhan haddii aad hadda nugu soo biirtay janalka subscribe inoo saar. aan ku bilaabay madasha xisbiyada qaran ayaa mar kale waxa ay ka hadleen doorashada la filayo inay ka dhacdo sanadka 2021 dalka. madaxda xisbiyada qaran ayaa weli waxa ay ku adkaysanayaan in marnaba aan la aqbali karin in waqtigeeda aysan ku dhicin doorashada la filayo in dalka ay ka qabsoonto sanadka 2021. shir jaraa'id oo si wada jir ah magaalada Muqdisho ay ugu qabteen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee kala ah Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka hadleen doorashada iyo waqtiga ay dhacayso. gudoomiyaha xisbiga madasha qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin warka ka soo baxay dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku aadan in qof iyo cod lagu qabto doorashada la filayo inay qabsoonto. waxa uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed inaysan suuragal ahayn dalkana uu amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba uusan ugu diyaarsanayn in qof iyo cod doorashada uu ku soo baxo madaxweynaha. waxa uu yiri waxa hubaal ah in dalka hadda uusan u diyaarsanayn doorasho qof iyo cod ah, isaga oo ka dalbaday madaxda ugu sareysa dawladda oo madaxweynuhu uu ka mid yahay in doorasho xor iyo xalaal ah lagu qabto dalka, taas oo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah. waxa uu tilmaamay waqtiga loogu talagalay la gaari doono doorasho qof iyo cod ah. dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka dhinac hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna waxa uu ku raacay in aysan waqtigan ka dhici karin dalka doorasho qof iyo cod ah. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in markii doorasho uu dalka ku qabanayay uu garawsaday in doorasho aanan ahayn mid baarlamaani ah aan dalka lagu qaban karin. waxa uu xusay in madaxweyne Farmaajo uu ugu baaqayo in doorasho waqtigeeda leh wadanka uu u qabto. waxa uuna xusay in marnaba aysan suuragal ka noqonin madaxweynaha Soomaaliya in doorashada uu dib u dhigo. dhinaca kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa ay ka jawaabeen hadal dhawaan uu ka jeediyay baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku aadanaa in ay dib dawladda Soomaaliya u bilaabayso wada hadalkii ay la lahayd Soomaaliland. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland Faysal Cali Waraabe oo hadlay ayaa waxa uu yiri in waqtigan oo la joogo ololo doorasho oo Soomaaliya ay galayso aysan suuragal u ahayn in dawladda federaalka ay wada hadal la yeelato Soomaaliland. waxa uu tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu afgobaadsi ka dhiganayo Soomaaliland isla markaana waxa uu xusay in uu ku qaldayo ama uu ku hagardaacinayo doorasho wadanka ka qabsoonta. waxa ay sheegeen in doorashadu ay bilaaban karto markii dib ay Soomaaliya doorasho uga dhacdo. dhinaca kale xogayaha arrimaha gaashaandhigga xisbiga kale ee wadani Xuseen Aadan Cadde ayaa isna waxa uu sheegay in waqtiga kooban ee u haray dawladda uu hogaamiye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aysan Soomaaliland anfacaynin wada hadal ay la gasho, taas bedelkeedana ay samayso ama ay fawdo ay kaga dhigayso doorashada ka dhacaysa Soomaaliya. waa sida hadalka uu u dhigay xogayaha ka dhanka gaashaandhigga ee xisbiga wadani. weli waxaan ku guda jirnaa warkii aad kala socoteen janalka xulashada wararka. wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu la wareegay gawaarida dagaalka
iyo maleeshiyaad aad u fara badan. Odayaal ayaa waxa ay wasiirka amniga ay ku wareejiyeen in ka badan 10 gawaarida dagaalka ah oo isugu jira gawaarida loo yaqaan cabdibilaha iyo kuwa qoryaha waaweyn ay saaran yihiin iyo maleeshiyaad aad u fara badan. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada hubeysan ee lagu soo wareejiyay ay qaramayn doonaan isla markaana ay si wanaagsan u anfici doonaan amniga deegaanada Galmudug. Wasiirka amniga Galmudug ayaa dhanka kale waxa uu fariin u diray odayaasha aadaya deegaanada ay maamulaan maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab. Waxa uuna sheegay in ay tilaabo ka qaadi doonaan odayaal dhaqan haddii ay ku qabtaan inay aadaan deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Waxa uu yiri annaga marnaba nagama dhaxayso wax wanaag ah maleeshiyada Al-Shabaab oo aanan ahayn in aan la dagaalano. Haddii odayaashii aan hoos tagaynay ay la tagaan maleeshiyada Al-Shabaab taasi micnaheedu waxa ay tahay in argagixisada qaarkood ay garab siinayaan taasna aysan qaadan karin ka maamul ahaan. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in ay ka warqabaan odayaal taga deegaanada ay maleeshiyada Al-Shabaab maamulaan isagoo taa ku tilmaamay mid aan la qaadan karin inay tahay. Waxa hubaala in maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab ay dhib badan ku hayaan deegaano ka tirsan Galmudug. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan ay Muqdisho ay ku yeesheen guddiga joogtada ah. Guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay xarunta ay ku shiraan muddooyinkan ee Villa Hargeysa ayaa waxa ay go'aan ay ka soo saareen xildhibaanadu fadhiga ugu horeeya waqtiga uu dhici doono. Kal fadhiga 7aad ayaa waxa uu dhici doonaa maanta oo ay ku beegan tahay 10ka bisha 6aad sanadka 2020. Fadhigaas oo 6da bishan uu furay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Habdhowraha Golaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Xasan Nuux oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulanka Golaha Shacabka ay maanta ku yeelan doonaan magaalada Muqdisho looga hadli doono sharciga xisbiyada siyaasadda dalka ka oo aad loo wada sugayay. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa meelmarinta shuruuc dhowr ah kuwa oo lagama maarmaan u ah qabsoomidda doorashada la filayo in dalka ay ka qabsoonto sanadka soo aadan. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri marnaba ma jirto wararka sheegaya in Koonfur Galbeed ay carqalad ku noqotay wada hadal dhaxmari lahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka. Guddiyo ay labada dhinac soo kala magacaawdeen si ay dib ugu bilaabato wada shaqayntii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe dhaxmari jiray. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Koonfur Galbeed ay markasta diyaar u tahay sidii wada hadal iyo wada shaqayn uu u dhaxmari lahaa dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada shaqooyinkaas oo loogu diyaar garoobayo horumarinta iyo nabadda Soomaaliya. Halka aad warkaasi ka daawanaysaan waa janalka xulashada wararka. Iminkana warka ugu weyn ee dhanka dibadda. Madaxweynihii dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa geeriyooday kadib markii uu wadnuhu istaagay. Qoraal ay dawladda Burundi soo dhigtay barta Twitter-ka ayaa lagu xaqiijiyay geerida madaxweynaha. Qoraalka waxa lagu yiri dawladda Jamhuuriyadda Burundi waxa ay si murugo leh ay u shaacinaysaa geeri ku timid madaxweyne Pierre Nkurunziza, madaxweynaha Jamhuuriyadda Burundi oo ku dhintay isbitaal ku yaala dalkaas kadib markii uu wadnuhu istaagay 8 bishii Juun ee 2020. waa bishan aan ku guda jirnay ayaa lagu yiri qoraalka madaxtooyada Jamhuuriyadda Burundi ka soo baxay. Pierre Nkurunziza ayaa ku dhintay da'da 55 sano isaga oo kol horena ku dhawaaqay in doorashada soo socota uusan ka mid noqon doonin madaxda u tartamaysa qabashada xilka madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Burundi. Pierre Nkurunziza ayaa waxa uu Burundi hoggaankeeda u qabtay sanadkii 2005 waxa uuna ilaa iyo hadda uu gacanta ku hayay hoggaaminta Jamhuuriyadda Burundi waana in ka badan muddo 20 sano ah. Burundi ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha ciidamada u soo diray Soomaaliya kuwa oo qayb ka qaadanaya nabadda iyo xasilooni laga dhaliyo Soomaaliya kuwa oo magaca ay ku joogan Soomaaliya ay tahay AMISOM.
warkii dunida oo aad kala socoteen janalka xulashada wararka intaas ayaan ku soo ekaynaynaa. haddaba haddii aad hadda nagu soo biirtay, fadlan si ay wararkeena kuu soo gaaraan sabskraib inoo saar, sidoo kale sheer iyo leegtana ha naga hilmaamin. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.